الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channelka YouTube-ka Aslax Abasaafi waxaan idin soo gudbinayaa qiso aad iyo aad cajiib badan. Qisadaas oo ah qisadii Cabdullaahi bin Mas'uud radiyallahu anhu. Waa qiso aad u macaan badan. Walaalahayga qisada inta aanan gudi galin fadlan subscribe saar channelka si ay kugu soo gaaraan muuqaalada aan soo geliyo kambaneelka taawo si aad ugu noqoto qofka ugu horeeya oo daawada share dheh si aad ula wadaagto asxaabtaada. Walaalahayga qisada markaad daawataan fadlan u gudbiya walaalihiina kale ha idin naqatee sadaqa jaariya diinta faafiya ee diinta u degdega walaalahayga insha Allah. haddana waxaan idin bilaabi doonaa qisadii Cabdullaahi bin Mas'uud. Cabdullaahi bin Mas'uud wuxuu ahaa saxaabigii ugu horeeyay ee la jahra akhriska qur'aanka. kulankii ugu horeeyay ee Cabdullaahi ibn Mas'uud la kulmay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wiilkii dhalinyarada ahaa wuxuu ahaa mid aanan khan gaarin maalintaas. wuxuu magaalada Makka golaheeda ku foofinayay xoolo waliba asagoo dadka ka fog. wuxuu kaxeenayay eri oo uu daajinayay waxaana erigaas lahaa ninkii la oran jiray Uqbata bin Abi Mu'ayd. dadka waxay ugu yeeri jireen inna ummi cabdi, hase ahaatee magaciisa waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi, aabihiisna Mas'uud. Cabdullaahi ibn Mas'uud wuxuu maqli jiray wararka ku saabsan nabiga la filaayo in laga soo dhex saaro doono tulkiisa. ma uusan danaynin jirin arrintaas iyadoo ay ugu wacneed laba arrimood. waa tan koowaad isagoo da'yar iyo isagoo ka fog mujtamaca reer Makka. wuxuu ku caado dhigtay inuu kaxeeyo erigii uu lahaa Uqba laga bilaabo xilligii oo subaxnimada wuxuuna soo noqon jiray habeenkii. maalin maalmaha ka mid ah wuxuu arkay Cabdullaahi reer Makka waxay ahaayeen laba nin oo dhexaad ah ayna ka muuqato akhyaarnimo iyo deganaansho kuwaasoo ku socdo dhinaciisa meel fog. kadib Cabdullaahi wuxuu kaloo arkay inay nimankii aad u daalanayeen dhinaca kalena uu haraadkii iyo oonkii hayay darteed ay ka khalalaan bishimihii iyo dhuuntii. labadii nin markii ay u yimaadeen wiilka yaraa Cabdullaahi way salaameen. waxay ku yiraahdeen wiilyahow waxaad arigan nooga listaa wax aan ku damino haraadkayna sidoo kalena aan ku qoyno xididyada khalalay. wiilkii ayaa wuxuu ku yiri ma samayn karo arrintan maxaa yeelay arigan aniga mali waa laygu ammaanaystay. labadii nin ma aynan dhibsan hadalkii uu wiilkii yaraa yiri waxaana wejigooda ka muuqday raali ahaansho ay wiilka u qabaan. mid ka mid ah labadii nin ayaa wuxuu wiilkii ku yiri waxaad i tustaa neef eri ah oo aan weli qoodhii saaran. wiilkii yaraa wuxuu ishaaray waxar yar. ninkii ayaa u dhaqaaqay xaggii waxarta isagoo sibra xiray. wuxuu salaaxay candhadii isagoo xusaya magaca Alle. wiilkii isagoo yaaban wuxuu arkay ninkii. wiilkii waxaa isdhahay yacni waxarta ama eriga oo yaryariis oo weliba caana aan keenin sidee caana ay ku keeneen. yacni eri oo yariis ah caana ma keenaan ilaa iyo eriga markuu weynaado. erigan wuu yaryahay wuxuu keenay caano oo fara badan oo aan kala go'aynin. ninkii kale ayaa wuxuu soo qaaday weel isagoo weelkii ka buuxiyey caanihii. kadibna wuxuu isagii iyo saaxiibkiisaba ay dhameen caanihii. wiilkii yaraana waxay waraabiyeen caanihii isagoo aanan rumaysanin wiilkii yaraa wuxuu u arkay. wiilkii yaraa wuxuu yiri markii aan caanihii ka dharagnay ayaa wuxuu ninkii barakeysnaa ku yiri neefkii eriga isduuduub oo sidaadii hore noqo. isla markiiba candhadii ayaa sideedii hore noqotay. markay arrintu halkaa marayso ayaa waxaan ku iri ninkii barakeysnaa waxaad i bartaa erayadii aad tiri. wuxuu ugu yiri waxaad tahay wiil wax la baray. haddaba aan idin sheego ninkii la barakeeyey ee aan ka soo hadalnay wuxuu ahaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo sameeyey falkaas mucjisada ahaa. ninkii la socdayna wuxuu ahaa Abubakar Siddiiq radiyallahu anhu. maalintaas ay ka baxayeen magaalada Makka golaheeda waxaa sabab u ahaa iyagoo ka cararay gaaladii Quraysh rafaadkii ay u geysteen iyo xumaantinkii iyo dhibaatooyinkii darnaa ee ay la maageen iyaga. sidii uu wiilka yaraa u jeclaaday rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo saaxiibkiisa Abubakar Siddiiq radiyallahu anhu ayaa misna rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo saaxiibkiisa u jeclaadeen wiilkii yaraa iyagoo aad ula dhacay ammaano wanaagiisa iyo go'aankiisa adkaa. waxayna ku ogaadeen inuu yahay wiil khayr qaba. kama soo wareegan muddo dheer jeer uu Cabdullaahi ibn Mas'uud durbadiiba ka islaamay wuxuuna naftiisa
u bandhigay inuu u adeego rasuulka sala allahu calayh wasalam isagoo rasuulkana sala allahu calayh wasalam ka ogolaaday arrinkaa. maalintaa wixii ka dambeeyey wuxuu wiilkii nasiibka badnaa ka gudbay shaqadii foofinta ariga isagoo noqday adeegaha intii uu eebe abuuray sayidkooda. cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu naftiisa ku islaamay agjoogida rasuulka sala allahu calayh wasalam sida qofka iyo harkiisaba aynan u kala herin. cabdullaahi wuxuu ahaa kii mar kasta rasuulka sala allahu calayh wasalam la socda, marka uu gurigiisa joogo iyo marka uu socotada yahayba. wuu toosan jiray haddii uu seexdo. marka uu rasuulka sala allahu calayh wasalam qubaysanayana wuu asturi jiray. kabaha ayuu u gelin jiray kolka uu rasuulka sala allahu calayh wasalam doono inuu baxo. sidoo kale kabaha ayuu ka bixin jiray kolka uu doono inuu aqalka soo galo. cabdullaahi ibnu mascuud radiallahu canhu wuxuu ku barbaaray gurigii rasuulka sala allahu calayh wasalam. wuxuu qaatay hanuunkii rasuulka sala allahu calayh wasalam. sidoo kalena wuxuu ka akhlaaq qaatay sifooyinkii suubanaa ee rasuulka sala allahu calayh wasalam. wuxuu rasuulka kaga dayday dhammaan astaamihiisa wanaagsanaa ilaa laga yidhaahdo cabdullaahi wuxuu aad ugu ogyahay rasuulka sala allahu calayh wasalam xagga hanuunka iyo xagga muuqaalkaba. cabdullaahi ibnu mascuud allaha ka raali noqdee wuxuu ka soo baxay madrasadii rasuulka sala allahu calayh wasalam. wuxuuna ka mid ahaa saxaabada kuwooda ugu aqoonta badnaa xagga akhriska wacan ee qur'aanka. wuxuu kaloo ahaa saxaabada kuwooda ugu fahmada badan xagga macnaha qur'aanka, dhinaca kalena ugu aqoonta badnaa ulajeedada oo loo soo dejiyey qur'aanka iyo shareecada islaamka. maalin maalmaha ka mid ah cumar bin khataab radiallahu canhu wuxuu u imaaday nin. wuxuu dhahay, amiirkii mu'miniintow, aniga waxaan ka imaaday magaalada kuufa. waxaan magaalada ugu soo tagay nin misxafyada dadka kor ahaan ugu yeerinayo isagoo aanan eegin misxafka. cumar ayaa si carooday, waa xanaaqay. wuxuuna yidhi, waa kuma ninkaas? ninkii ayaa wuxuu ku yidhi, ninkaasni waa cabdullaahi ibnu mascuud. markii uu maqlay hadalkan cumar caradii waa ka degay markii uu maqlay inuu yahay cabdullaahi bin mascuud. kadib cumar wuxuu yidhi, wallaahi ayaan ku dhaartay garan maayo inuu jiro qof cabdullaahi ibnu mascuud kaga xaqnimo badan inuu qur'aanka dusha ka akhriyo. maxaa yeelay cabdullaahi bin mascuud qur'aanka wuxuu ku akhrin jiray qur'aanka asagoo qoyan oo markaas soo degay ayaa isla markii qur'aanka qaban jiray ayuu akhrin jiray, ayuu xifdin jiray cabdullaahi bin mascuud. nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu dhihi jiray, qofkii jecel inuu akhriyo qur'aanka isagoo qoyan siduu u soo degay oo kale ha uu akhriyo akhrinta cabdullaahi bin mascuud. cilmiga cabdullaahi bin mascuud ee la xiriira aqoonta kitaabka alle wuxuu gaaray inuu naftiisa ka oran jiray, ilaahay xaqa ah ayaan ku dhaaranaye ma soo degin aayad qur'aan ah ilaa hadday jirto waxaan ogahay halka ay ku soo degtay. waxaan kaloo ogahay sababta ay ku soo degtay. haddii aan ogahay inuu jiro qof qur'aanka iga yaqaan oo ay suurtagal tahay inuu u tago waan u tegi lahaa, laakiin ma jirto qof oo ka xifdi badan cabdullaahi bin mascuud qur'aanka. maalin ayaa waxaa magaalada maka ku kulmay asxaabtii rasuulka sala allahu calayh wasalam. wakhtigaasna waxay ahaayeen kuwa aan awood lahayn oo tiro yar. waxay is yidhaahdeen, wallaahi gaaladii quraysh weli ma aynan maqlin iyadoo qur'aanka kor ahaan loo akhrinayo ee yaa maanta intuu baxo quraysh makashinaya qur'aanka. cabdullaahi ayaa intuu istaagay ayuu yidhi, aniga ayaan baxaa. cabdullaahi wuxuu istaagay maqaamkii ibraahim oo la soo baxay codkiisa quruxda badnaa isagoo kor ahaan u akhrinayay bilowgii suurad arraxmaan. markii la gaaray habeenkii, ruuxdii cabdullaahi ibnu mascuud waxay haleeshay saaxiibkii sareeyey ilaah isagoo carabkiisana ka qoyan yahay xuska alle waa qur'aanka. ilaahay waxaan ka baryaynaa cabdullaahi bin mascuud inaa ilaahay oo geliyo jannat alfirdows alaclaa. annagana ilaahay waxaan ka baryaynaa xigmaddii oo ilaahay siiyey cabdullaahi bin mascuud dhammaantiini in ilaah annagani na siiyo. walaalahayga filimkan faafiya ee sheergareeya, adinkani ha idin noqotee sadaqal jaariya. walaalahayga shayga oo fiican oo kheerka leh u degdega. walaalahayga maanta haddaad faafisaan filmadan aniga aan idin soo turjumooyo waxaan idin naqanaysaa sadaqal jaariya.
maxaa yeelay markaad dhimataan adinkoo godka aad ku jirtiin xataa qofkii filimkan oo fiirsada oo aad u gudbisaan qabriga dhexdiisa adinkoo ku jirtiin waxaad ka helaysaan ajar sadaqa jaariya waa sidaas walaalahayga faafiya diinta shayga oo malaayacniga ah oo waxba aan tareenin oo sheeko oo kansaas waaye oo youtube-ka la soo gelinayo wallahi waxaa idinka khayr badan filimadan inaad faafisaan inaad barataan saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalam qisooyinkiisa iyo sida ay ahaayeen wallaahi filmadan haddaad ood badsataan qalbigiina waa soo jilac ayuu noqonaa walaalahayga filimkani waxaan idinku soo turjumay studio Safi oo ku yaala dalka Talyaaniga gaar ahaan magaalada Padova waxaana idin soo turjumay walaalkiina Aslah Aba Safi. Like, share, comment.